كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشركii 94 qeybtii labaad ee dhisidda ubadka caafimaadkooda ee barnaamijkeenii barbaarinta ubadka. waxaynu ka soo warramaynay siyaabaha marka aynu u dhisayno ubadka caafimaadkooda. qeybihii hore nadaafadda ayaynu kaga soo warranay. maanta waxaynu ka warrami doonaa ubadka yaryar in waa maxay laga ilaaliyo ama laga fogeeyo macnaha cudurrada faafo markaa. nabiguna calayhi salaatu wassalaam wuxuu markaa inoo dejiyey oo inoo sheegay qaacidooyin markaa caam ah oo waa maxay dee ummadoo dhan maxay ku socda kooda yar iyo kooda weynba markaa, kuwaasoo markaa sheegaya dee qofku haddii waa maxay isagu xanuun uu qabo ama uu xanuunsanayo dee bulshadii kale markaa waa maxay caafimaadka qabtay inaanu markaa waa maxay soo dhexgelin si markaa aanu cudurkii ama xanuunkii aanu ugu faafin markaa dadka intii kale. sidoo kale waa maxay waa inaan waa maxay dee qofkii haddii isagana maxay qof xanuunsanayo uu jiro oo kale isagana maxay qofku dee waa maxay preventionkii ama iska ilaalintii isagana uu sameeyo markaa. haddaba qofka weyn oo kale iyo marka laga hadlayo ubadka yarar way kala duwan yihiin. ubadka markaa waa maxay xanuunada yar faafaya iyo jeermiska, fayraska iyo bacteria waxyaabahaas oo dhan siday ugu faafaan ama siday u qaadaan ama sida mataqaana ubadka u soo gaadho ayaa markaa aada u sahlan oo aada u fudud. marka waxyaabaha muhimka waxaa la yiraahdaa waalidka maaragtay looga baahan yahay waxaa ka mid ah macnaha mar kastaba inay ka taxadiraan haddii ilmihii yaraa uu raacayo, hadday markaa meel aadayaan oo kale, hadday saaxiibadooda u tegayaan, hadday qaraabadii mataqaana soo salaamayaan oo kale, waa inay mar kastaba waa maxay dee xaaladda haddii dadkaas xanuunsanayaan oo kale mar kastaba waxay waalidku waxaa la feejigan yihiin. sidoo kale waxa la yidhahdaa waa maxay cidda markaa u imanaysa iyagana waa inay markaa waa maxay ubadka ay la socdaan markaa. cidda waa maxay dee qofka soo booqanaya caafimaadkiisa dee qofku waa maxay mar kastaba taxadirka iyo ka hortagga waa shay marka laga maarmaan loo baahan yahay asbaabta ka mid tahay. haddaba nabigu calayhi salaatu wasalaam qaacido ayuu markaa dejiyey xadiiska markaa bukhaari iyo muslimka ay soo saareen. waxa uu leeyahay markaa nabiga abu hureyra warinaya waxa uu leeyahay markaa laa yuruudanna mumridun calaa musaxin, macnaha qof dee waa maxay xanuunsanaya oo isaga waa maxay aan dee sax ama xanuunsanayaanu markaa usii gudbinin ama yaanu waa maxay ula tegin dee qofkii waa maxay caafimaadka qabay markaa si aan ugu dhicin. marka halkaa waxaad ka arkaysaa waa maxay taxadirka iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam waa maxay degniinta dadka waa maxay guud oo dadka uu siiyey markaa. xadiis kale markaa jira oo markaa isaguna waa maxay la yiraahdo waa maxay labada xadiis sidee la isu waafajinayaa oo xilligii beriga dhaweed koroonihii waa maxay uu jiray isagana maxay culimada aada uga hadleen oo aada markaa ay u fasireen waxayaa markaa laa cadwa xadiiska nabigu uu leeyahay oo isaguna waa maxay cadwada waa maxay waa in dee xanuunkii ama waa maxay infectionkii intuu qofkii ka tago xanuunsanayay uu kii kale markaa waa maxay uu gaadho. marka nabigu wuxuu leeyahay laa cadwa macnaha wax faafaya haba yaraatee ma jiraan. iyo xadiiska nabigu leeyahay waa maxay iska ilaaliyo qofkii xanuunsanaya inuu kii kale u tegin. sidee markaa waa maxay la isu waafajinaya markaa la isweydiiyey jawaab yaroo kooban waxay noqonaysaa marka xadiiska nabigu leeyahay laa cadwa macnaha wax faafaya ma jiraan. macnaha saxaabada waxa markaa la dhisaya marka caqiidadooda marka ictiqaadkooda oo dee xilligii jaahiliyada marka waa maxay waxyaabaha ay aaminsanaayeen ayaa meesha waa maxay markaa laga saaraya marka oo la diidanaa oo waa maxay dee wax iska gudbaya iyo ma qofku ilaahay rumaysan iska gudbaya qofku waa maxay ayay u qaadanayeen. laakiin qofku waxa la rabaa inuu waa maxay ogaado dee inuu warta waxaan gudbaya ama xanuunkan gudbaya waa maxay inuu waa maxay ku gudbayo dee biqadaa illaahi wa qadarihi markaa. taas markaa nabigu halkaa hore wuxuu leeyahay laa cadwa marka waxaan iska gudbay qofkii u imanaya ma jiro dee ilaahay markaa qadartiisa iyo qadaagiisa mooyaane. dhinacan kale waa ka xadiiska markaa nabigu uu leeyahay waa maxay kiina xanuunsanayaan marka waa maxay u tegin ama aan waa maxay ka ag dhawaanin dee ka caafimaadka qaba marka si aan infectionka ama cudurkii u qabay aan u qaadsiin. marka dhinaca markaynu diiniyan ka istaagno
diinteena quruxda badani ummadda caamka oo dhan saas markaa waa maxay ayay ugu sheegtay. dhinacan kale caafimaadka marka laga waramayana dee iyaguna waxyaabaha ugu badan waxa la yiraahdaa ee qofka xanuunka waxa la disease ama cudurka ku keenaba waxa marka waa jeermiska yaran waxa la faafaya marka ee ku faafaya dadka marka maxay saddex geelaya ee marka waa maxay isu imanaya marka waliba maxay xilliyada qabaha aadka isugu soo dhawaanaya marka oo aadka u sii faafaya. haddaba waxa la yiraahdaa ubadka yaryar iyaga marka laga waramayo waxa aad u adag deena ilmihi yara maanto dhan maxay waxa maanta ku tiraahday waa maxay waxaan iska ilaali aad bay ugu adag tahay. haddaba waalidka hal shay baa looga baahan yahay iyaga waa maxay inay sameeyaan oo markasta ay ku dadaalaan. waxa looga baahan yahay teaching waxa la yiraahdo in ubadka ay baraan macnaha healthy habits-ka healthy habits macnaha waxa weeye macnaha healthy habits-ka macnaha waa maxay qodobada inay baraan ubadku ay iskaga ilaalinayaan marka waa maxay cudurkaas iskaga ilaalinayaan. waad u sharaxaysaa, waad u sheegaysaa, waad ugu celcelinaysaa, waad u sheegay marka qofku maanta ma ku tahay halka waxa ka jira hadaan ku dhamaanta halka waxa tegin halka waxa ka dhacaya qofku wuu iska ilaalinaya marka. laakiin haddii qofkii lagu qayliyo maanta ma maxay meeshii waqti badan ma ku lumaya dadku iska raxsanayaan ubadkii waalidka marka ilmaha yarodiga arkay markastaba hargabka ku dhacaya fayraska soo qaadan aad markasta u badan yahay. marka waalidku waxaan u dadaalanaa u sheeganaa waa maxay horta ubadku markasta macnaha inay u sheegaan oo ay baraan haddii gacmahoodu ama ay wasakh yihiin ama ay deewa maxay aanay nadaafad ahayn inaan markaa taabsiin marka aan u dhaweynin oo ay ka fogeeyaan indhihii ka fogeeyaan sankoodii ka fogeeyaan afkii ka fogeeyaan jirkii maxay ka fogeeyaan marka oo inay gacmi waa maxay loo sheego gacmo qof markuu dhaqo si fiican u soo maxay kilin gareeyo soo si fiican u saafi u ka dhigo in marka isticmaalo in loo sheego. ka koowaad waxa weeye ubadka in loo sheego iyadana akhlaaqda wanaagsan ka mid ah haddii daduray hayo oo kale ama hargabka ku jiro oo kale ama xanuunsanayo oo kale ama xataa markan caadiga hindhisada uu samaynayo oo kale oo sniiska uu samaynayo inuu maxay gacmihiisa waa maxay sida u saaro marka waafka waa maxay sida ugu qabto. saddexaad waxa weeye markasta waa maxay ubadku waa maxay ay isticmaalaan oo maxay suuliga ay tagayaan oo xaajida marka ay soo gudanayaan iyadana maxay in aad iyadana maxay ubadka yaryar loogu dardaarmo markasta loo sheego in iyadana maxay ilaaliyaan marka nadaafadooda halka. ta kale waa maxay iyadana ubadka in loo sheego ubadka yaryar guriga dhex jooga ama da'da dhexe ha ahaadaan da' kasta waa maxay qofku waa maxay oo ku sugan yahay marka ubadka yaryar yihiin in loo sheego waxyaabahan ay wada isticmaalayaan waa maxay halkan macnaha waa maxay waxyaabahan la gashanayo oo kale baalan lagu wada cadayanayo oo kale yani itemska kala duwan koofiyadahan yar la wada xirinayo oo kale macnaha waxyaabaha waa maxay badan dhan waxay ubadka yaryar maxay la yiraahdo qof kastooba macnaha waxa isticmaalaysid adigu aad gashatay oo kale adigu aad iska leedahay macnaha inta badan xoog saar marka isticmaashid inaga waa maxay ka fogaanana maxay cudurkii marka waa maxay kii kale ka yimaado kii kale marka uu soo gudbo. marka loo yimaado meelaha public area-da oo kale ama meelaha dadku waa maxay isugu yimaadaan suuqyada haday noqoto haday marka hoteelada noqoto waa in markasta waa maxay waalidka ubadkii ay u sheegaan hababka ugu fudud maxay caafimaadka ku ilaalin karaan waxa weeye ay ku yiraahdaan waa inaad wixii maxay infection ama jeermis ka soo ka fogaatid nadaafadan aad ilaalisid. diintuna waa maxay marka isugu xidhayo qofku in nadaafadiina ilaaliyo marka soo ahado qofta daahira marka waa maxay nadaafadiisu toosan tahay uuna iska ilaaliyo meel kasta waa maxay qofka cudurku ka soo wadari karo ama waa maxay uga iman karo marka hadduu qof uga iman karo hadduu banaan uga iman karo hadduu waa maxay suuli ka soo raaci karo meel kasta qofku waa maxay cudurka ka soo qaadi karo uga iman karo. sidoo kale waxyaabaha qofka soo gaaraya qofka hadii maanta uu shil galo ama uu dhaawac ku soo gaaro macnaha wax markaba la arki karayo qofkii markaba waa maxay laakiin waxyaabahan kale hadda ka sheekay jeermiskaas oo dhan oo kale ee faafaya gudbaya wax marka ilma aragtay weeye marka aan la arkayn kuwaas waalidka looga baahan yahay ubadka yaryar inay markastaba u sheegaan. sidoo kale waalidka qurbaha jooga ee ubadka yaryar soo qaadan inta subaxii soo qaadan daycare-ka geeya ee galabtii kale u soo noqda iyagana waxa loo gudboon inay markastaba waa maxay ubadka yaryar meesha ay geynayaan intaas saacooda ubadka meesha lagu haynayo ee dad kale marka ay haynayaan iyagana maxay nadaafadooda markastaba ay la socdaan. waa ilmo yar subaxii saaka aad qaaday haddana galabtii ka soo qaaday 5 saac 6 saac ka badan ku jira hawrtan xaafadii aad keenaysid waa arrin marka iyadana waa maxay aad u adag marka taa insha Allah ta'ala iyagana waalidka qurbaha joogan ku baraarujinayna markastaba marka caafimaadka laga waramayo marka intaan cudur wax kasta intaan la gaarin
in nadaafadina lagu dadaalo oo qofku jirkiisii maryihiisii meesha seexanaya meeshu marya ay nadiif yihiin iyo sidoo kale meel kastoo infectionka ama cudurku kasoo gaadhayana ama jeermisku waa maxay inuu ka fogaado labadaas baa ugu muhiimsan marka inaasna ku jirnaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa wa aclam